warar aan ka helnay hay'adda duulista rayidka ah iyo saadaasha hawada ee Soomaaliya iyo qaar ka mid ah maamulada shirkadaha diyaaradaha ee Soomaaliya ayaa xaqiijinaya in dawladda Kenya ay aqbashay cadaadiska kaga yimid madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si dib loogu fasaxo diyaaradaha qaadka keeni jiray Soomaaliya. madaxweyne Farmaajo ayaa dhawaan amar madaxweyne ku joojiyay qaadka ka imaan jiray Kenya kadib markii ay dawladda Kenya ka baxday ballamo badan oo ay wada galeen Soomaaliya. sidoo kalena ay dhawaan diideen in dalkooda lagu soo galo baasaboorka Soomaaliga ah. tan iyo markii uu dilaacay xanuunka coronavirus waxay dawladda Kenya diiday inay dalku gal siiso dadka haysta baasaboorka Soomaaliga ah. tani waxa ay keentay in muddooyinkii la soo dhaafay inay diyaaraduhu qaadayeen dadka Soomaalida ah balse haysta baasaboorada ajnabiga ah. madaxweynaha Soomaaliya ayaa la sheegay inuu arrinkaasi ka carooday kadibna waxa uu joojiyay qaadkii ka imaan jiray Kenya. madaxweyne Farmaajo wuxuu miiska soo saaray ilaa 4 sharuudood oo 2 ka mid ah ay siyaasadda la xiriiraan, 2 kalena ay socdaalka la xiriiraan. 4 sharuudood ee madaxweyne Farmaajo ayaa waxa ka mid ahaa inay Kenya dib u fasaxdo baasaboorka Soomaaliga ah maadaama wadamada kaleba ay u fasaxeen inay dalkooda soo gali karaan markii uu hoos u dhacay xanuunka safmarka ah ee COVID-19. inay joojiyaan diyaaradaha Soomaaliya ka yimaada ee soo mara Wajeer oo ay dhawaan dawladda Kenya dib u soo celisay. in Kenya ay raaligelin ka bixiso xadgudubyadii ay diyaaradaheedu ku sameeyeen hawada Soomaaliya iyo inay faraha kala baxdo arrimaha gudaha ee Soomaalida. sida ay goor noo xaqiijiyeen xubno ka tirsan hay'adda duulista rayidka iyo saadaasha hawada ee Soomaaliya iyo sidoo kale qaar ka mid ah madaxda diyaaradaha inta badan u safra Kenya waxa ay Nairobi ogolaatay inay joojiso baarista diyaaradaha ka yimaada Soomaaliya lagu la sameeyo magaalada Wajeer. sidoo kale waxay aqbaleen inay dib u fasaxaan baasaboorka Soomaaliga ah oo ay dadka wata inta badan dhibeen tan iyo markii uu dilaacay xanuunka COVID-19. dawladda Kenya ayaa dhowr jeer soo celisay dad wata baasaboorka Soomaaliga ah oo ay siyaasiyiin ku jiraan tan iyo markii uu dilaacay xanuunka coronavirus. tii oo ay jirto in dadka baasaboorada kala wata inay fasax u yihiin soo galista Kenya. labadan arrimood oo ay shacabku baahi weyn u qabeen ayaan la ogeyn inuu ku qanci doono madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo uu dib u fasaxi doono qaadka. ganacsatada reer Kenya ayaa la soo wariyay inay iyaguna kaalin ka qaateen arrintan oo ay madaxdooda ku cadaadiyeen in Soomaaliya loo fuliyo dalabkeeda si ay ganacsigooda dib ugu bilaabaan. golaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa dhawaan meel mariyay in la kordhiyo lacagaha lagu canshuuro qaadka. ganacsatada qaadka ayaa la sheegay inay aqbaleen arrintaas. hadda waxaa laga warsugayaa sida uu madaxweyne Farmaajo u arko go'aanka ay qaadatay dawladda Kenya iyo inuu dib u fasaxi doono qaadka iyo in kale. qaadka ayaa si teelteela bilii la soo dhaaf u soo galay Soomaaliya kaas oo ay ganacsato Kenyaana ku keenaan doomo magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose halkaas oo kadibna loogu soo gudbiyo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. haddaba sidee u aragtaa arrintan?